wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Maxamuud Axmed Barre Garaad oo ku sugan magaalada Burco ayaa shahaadooyin guddoonsiiyay in ka badan 150 haween ah oo bartay xirfado kala duwan oo ay ka mid yihiin cunto karinta, xanaaneynta carruurta, qalabaynta guryaha iyo gargaarka degdega ah. Ardaydani ayaa kuwa wax ku baranayay xarun ay maamusho ururka SOS oo gacanta ku haya carruur kale oo ay baraan farsamooyinka gacanta iyo qaar ay u sameeyaan dhaqan celin. wasiirka wasaaradda shaqada Maxamuud Axmed Barre Garaad ayaa uga mahad celiyay ururka SOS ardaydan ay u soo saareen dalka. waxa uu wasiirku sheegay in xukuumadda Soomaaliland dhiirigelinayso dugsiyada farsamooyinka gacanta si loo helo dad xirfadyahan ah. دراسات سميني يعني بعدين سميني جوني لا ما أنت يا حبيبي هوري أو ديرو هوتيل كل شيء ني واحد نصاب حي فرسمية كان دكسيدي فرسمة إلا سعوديو فرسمة هو حتى هو مريا Barasab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Baxle ayaa dhankiisa tilmaamay kaalinta ururkan SOS kaga jira gobolka isagoo wax lagu farxo ku tilmaamay in maanta oo ay gobolkan Togdheer ka soo baxaan 150 haween oo xirfado kala duwan yaqaana. xirfadan tababarka lagu siinayo aqooneed 150 qof oo ka mid ah haweenka ku nool degmadan ama gobolka Togdheer oo isugu jira 3 xaafadood oo mid ka mid ah tahay ADPs. agaasimaha ururka SOS Maxamed Aadan Xaaji Diiri ayaa ka sheekeeyay maraaxilkii kala duwanaa ee ururkan SOS soo maray muddada ay ardaydan wax baranayeen isagoo uga mahad celiyay hay'adda SPC iyo Caritas oo wada shaqayn leeyihiin ururkan. SOS oo ah hay'ad dhalinyaro wadaniya mar walba waxaan ku dadaalaa eegnaa waxqabadka ama xirfadaha ama aqoonta bulshada wuxuu taraya hadhowta anfacaya. xubno ku hadlayay afafka ardayda iyo mas'uuliyiin kale oo ka hadlay xafladani ayaa dhammaantood sheegay in farsamadu gacanta ay xirfad lama huraan ah oo dalkeenu u baahan yahay waxaana ururkan SOS ku tilmaamay mid buuxiyay kaalin muhiim ah. Cabdi Abdillaahi TV-ga qaranka Soomaaliland.